السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. cashirkii ka horreeyay waxaan kusoo baranay qaybta bodiga gaariga ama oogada sare ee gaariga. Isla cashirkan waxaan ku eegi doonaa interior oo ah qaybta gudaha ee gaariga. Qaybta guduhu hadaba waxay ka kooban tahay sida tan. Qaybta dashboardka ama dash coverka gaariga hadii jeer wax ka soo muuqdaan. Air ventiga hadii jeer oo ah meesha AC-gu ka soo daaya gaarigu. Music system oo ah meesha codka laga maamulo gaariga. glove box oo ah meel yar wax lagu kaydsado oo storage loo isticmaalo. Rear view mirror muraayada xagga dambe ku tusa baabuurta ka dambeeya hadii jeer. Steering-ka oo ah shookaanti gaariga halka laga maamulo. Home-ka ayaa gudaheeda bartanka kaga sii beegan. Sidoo kale waxa ku beegan speedometer oo ah saacada speedka ku xadidaysa hadii jeer intuu maray ku tusa. Saddexdan kala barana ayaa muhiim ah. Acceleration, brake, clutch waa lewarka brake iyo clutch-ka oo ah ka maamula speedka. Seat belt waa beelka halka la gashado. Shift gear waa speedka gaariga halka laga bedbedelo. Handbrake waa brake gacanta afarta taayiro mar wada qabta. Sidoo kale halkan waa looga gacanta ama daaqada. Kana waa gearbox-ka gaariga oo ah geerarka u maamula gaariga. Sidoo kale system-kan waa systemka handbrake oo ah brake gacanta hal marna wada qabta afarta taayir ee baabuurkaaga waana muhiim. Qaybta yar ka sii kooban waxa weeyaan waa qaybta brake si fiican kugu qabsamo ku saalaysa. Qaybtan kala furfuran waxa oran karnaa waa transmission line-ka, flywheel-ka, clutch disc-ga, pressure plate-ka, clutch cover-ka. Thank you.